Sheekadeen maanta waxay ku saabsan tahay nin hore ka baxay nolosha dagaalka, si uu u noolaado nolol degan, ulana wadaago qoyskiisa. Laakiin nasiib darrada nolosha ayaa ku soo wajahday xaaskiisa. Wiilkiisa ayaa si naxariis darro ah loogu hordilay. Nin weligiis doonay nabad ayaa lagu qasbay inuu dib ugu soo laabto dunida uu ka cararayay. Kiisa iyo xirfadiisa iyo xooggiisa qarsoonaa wuxuu adeegsadaa hal ujeedo, waana aargoosi. Waa mid ay ka buuxaan dagaallo iyo sir qabiil oo lagu magacaabo ninja, iyo halkan dhexdiisa ay dulmi lagu baabi'inayo. Waa dagaal aan laga baxsan karin, in ay xaaskiisa iyo wiilkiisa ay ku hordileen. Noola fahanto sheekadeena miyigeena maanta nii wadno, soo qaado koobkaaga shaaha ama kafeega ah. Miyigeena waxa lagu magacaabaa ninja kumai. Maanta waxay ku bilaabanaysaa nin si degdeg ah uga soo hordaya tareen, isagoo la moodo inuu waalan yahay, laakiin koox dad ah oo og sirtiisa ayaa daba socda, waxaana meesha ku buuxiya qiiq si ay u qariyaan weerarka. Ninkii wuxuu muujiyay xirfad la yaab leh, isagoo la dagaalamaya dhowr hal mar. Markii si xawliya loogu soo tuuray bir, uu isdifaaca isagoo isticmaalaya martiisa. Markaas adowgiisu waxay adeegsadaan irbad bir ah oo loo yaqaano sembom, balse ninku wuxuu ku qabtay ilkihiisa, wuxuuna dib ugu tufay adowgiisa. Si kastaba ha ahaatee, tirada ayaa ka badatay, waxaana ugu dambeyn lagu qabtay qoorta isagoo la jiidayo. Nin cabsi leh oo dhulka ku dhuftay oo toori ku dilay. Kadib waxay isticmaalaan qalab si ay u hubiyaan inuu dhintay, wayna ka tageen. Waxaan tusayaa nin lagu magacaabo Mr. Gio Logan ku sugan beertiisa, wuxuuna ku laabanaya gurigiisa. Kadib wuxuu kaxaysanaya gaadhigiisa. Galabtii markii gaadhay, isagoo hagaajinaya mootadiisa, waxa uu imaaday ninkiisa oo maska xidhan, uu la ciyaaraa. Wiilkiisa waxaa lagu magacaabo Kayle. Xaaskiisa Saara ayaa soo galaysa iyadoo la yaaban maskiga wejigiisa ku jira. Wuxuu leeyahay, waa isku mid dadkaas xun iyo maaskaradani. Ayaa ugu degaya in dadka u malayn karaan inuu midkood yahay. Kayle wuxuu rumaysan yahay inuu aabbiyu badbaadin doono haddii khatar yimaado. Jay wuxuu ka shakisan yahay haddii weli awood inuu wajahdo halis, laakiin Saara waxay leedahay, waxaan la tacaali doonaa iyaga, sababtoo ah Kayle darteed wax kasta oo samayn karaa. Si dambe wararka ayaa sheegaya in nin la dilay, taasoo ka dhigaysa Saara inay ka walwasho inuu ahaa keligii oo ka baxay qabiilkooda. Kadib ayagoo wada sheekaysanaya ayuu Kayle imaado, ayuu aabbihi ka odhanayaa, waa xilligaad seexan lahayd, ayna mari. Kayle aabbihi wuxuu sheegaa in habeenkii dhalashadiisu soo dhowdahay, sidaas darteed uu xaflad u dhigo. Wuu ballan qaadayaa midaas. Ninkiisa wuxuu soo degaa hoos, isagoo fiirinayana kamaradaha ammaanka ee guriga. Aad u taxadaraya ayay Saara la hadlaysaa, iyadoo ka cabanaysa in dilka ninkaasu ahaa mid cabsi leh. Waxayna sheegaysaa inay ka baqayso qof la yidhaahdo Reaper. Jay wuxuu sheegayaa inuu Reaper yahay kalisood, mana ahan isagu kan ka dambeeyay dilka. Waxaana loo muujinayaa siduu Jay uga taxadarayo asturnaantooda, isagoo xataa tirtiraya faraha. Qoyskoodu waxay ku socotaa si degan, ku dadaala in noqdo aabo wanaagsan. Maalinta dhalashada Kayle waxaa la samaynayaa xaflad yar. Kayle wuxuu helay hadiyad ay ka mid tahay ciyaarta video gameska iyo maski cusub oo aad u jecel yahay. Halkaas waxaa ku qaadanaya waqti aad u qurxoon, ay ku wada faraxsan yihiin qoyska. Habeennimadii markii gaadhay ay seexdeen, ayuu Jay dareemay khatar. Markuu hoos u soo degay, wuxuu soo weeraraa koox ninja ah. Xirfadiisa dagaal ee sare, wuxuuna isticmaalay seefihiisa si uu uga takhaluso cadow badan. Ku jira ayuu maqlaa codka wiilkiisa oo ugu yeedhaya aabbo. Degdeg ugu horkay isagoo dhaawaca, balse si daran ayuu u dhaawacmay markii irbado bir ah lagu dhuftay qoortiisa. Gaadhay dabaqa sare, wuxuu arkay meydka Saara iyo Kayle oo dhulka yaala. Taasina aad bay u gelgishay qalbigiisa. Maxaa ka xun qoyskaaga lagu hordilo, waxaanan aad qaban karin, maxaa ka xanuun badan. U jeclayd hortaada lagu dilo, weliba qaya xanuun badan inuu caawiyo, laakiin midaas ma awoodo. Dhaawacaduna way ka hor istaageen. Kadib wuu suuxaa, waxayna hubiyaan inuu dhintay. Kadib cadowga waxay maqleen dhawaaqa booliska, darteed way baxeen. Yimaadey waxaana qoys la xasuuqay. Intaas kadib waxaanu arkaynaa qolka meydka, waxaana nala tusayaa qofta kafanta ku xidhan tahay, waana Gio. Gio wuu toosaa. Sidee ku dhacday nin saas oo dhan loo dilay inuu sii noolaado? Macquul maaha, isagoo xaaladda ku sugan. Kiisa sida arxan-darrada loo dilay, wuuna miyir daboolmaa. Soo toosay isbitaalka isagoo ku dhawaaday dhimasho. Markuu miyirsaday, wuxuu kaliya neersinka weydiinayay xaaskiisa iyo wiilkiisa. Nasiib darro, waxaa loo sheegay inay dhinteen. Qolka waxaa soo galay xubno ka tirsan FBI oo lagu kala magacaabo Mike iyo Emma. Ka weydiiyey weerarkii. Gio wuu aamusay, laakiin Mike ayaa dareemay inuu aad u xanaaqsan yahay. Markaas ayuu siiyaa kaadhkiisa shaqada, wayna ka soo baxeen.
waxaa ku soo weerara dhakhtarkii ragga qoyskiisa dilay wuxuuna la dagaalamay si waaliya wuxuuna isticmaalay awooddiisa shadow technique hal mar ka soo daya afkiisa markaana hal mar ayuu ka wada jiraa madaxa waxay kulmaan kabtanka tiimka soo weeraray daalama si kafoolka foola mar kale ayuu dana adeegsanaya awooddiisa shadow technique waana soo weeraraya ninka dagaalku siduu socday ayuu jiyo hal mar wadnahaasi ka gelinaya halkaasna waxaa ku guulaysta jiyo ninka ayuu tusaya wejigiisa dhabta wuxuuna iska qaadaa wejiga beega wuxuuna dhammaystiraa ninka kadib wuxuu soo galaa qolka meydka wuxuuna marada ka qaadaa meydka xaaskiisa isagoo u balan qaadaya inuu ka dambeysa dilkooda kadib jiyo wuxuu ka baxsadaa hosbitaalka si uu tago gurigiisa kadib jiyo wuxuu ku laabtay gurigiisa wuxuuna dumiyaa gidaarka si uu la soo baxo sanduuq qarsoodi ah wuxuu ku hayay maaskaradiisa isawirka qoyskiisa wuxuu gubay guriga si aan loo raadraacin wuxuuna xirtay maaskaradii isagoo dib bilaabaya reerashii nija uu ka cararay waxay guuraysaa sarxaad qabiil nija ah oo qarsoodi ah kuwaasoo adeegaya dalka jabaan mararka qaar waxay jebinayaan xeerarka caalamiga si ay u difaacaan masiirkooda jabaan kadib waxaa la arkayaa nin la dhaho budo oo xirxiran wuxuuna ka mid ahaa kuwii soo weeraray qoyska jiyo logan kadib logan isagoo xog ka baadhaya ay si arxandara u gulayaa ayuu hal mar suuxa tamaryelay darteed egnaa oday lagu magacaabo biyaar fikari sidoo kale loo yaqaano chieftain dhakhtar hore oo ka tirsanaa ururka ninjaayada awood sir ah kadib markuu daweeyo yohigan diyaarka gari wuxuu ka digaa inuu isticmaalo xidhan ama forbidden technique ano secret nuclear artist ogaana magaca dhabta ee Mr. Joe Logan magaca dhabta waa Mr. Higan weli nool yahay inkastoo dhaawac halis ah uu lahaa kadib markuu Higan soo kaco wuxuu dhammaystiraa budo markaasuu ka waayo xog rasmiya si waaliya arxan daran anuu waaye adoonoo haligu gubaa laakiin midaan wuu qalmaa sababta wuxuu sameeyey waynu wada ognahay Higan wuxuu isku diyaaraa inuu keligiis la dagaalamo cadowgiisa wuxuu bilaabay inuu raadsado dadka ka dambeeya dilka qoyskiisa waxaana halkan ku dhammaanaysaa xalqadeena maanta heshay like saar muuqaalka commentigana fikirada nagula wadaag subscribe noo saar si dhiirigelin ugu noqoto